xiriirka kubadda kolayga iyo sidoo kale wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa iska kaashanaya sidii dib loogu soo celin lahaa garoonka kubadda kolayga ee Stadium Muqdisho. Garoonkan ayaa waxa uu ka mid ahaa garoomada ugu caalamisanaa ee ku yaalay magaalada Muqdisho, gaar ahaan ee lagu ciyaarayay ciyaarihii barsimaadkii ee wacdaraha ay ka dhigeen xidiga waaweyn oo markaasi ka soo muuqday xulka kubadda kolayga iyo kooxaha dalkeena. Garoonkan ayaa waxa uu hadda ku sugan yahay marxaladda burbur ka buuxa, kaasoo markaasi soo gaaray burburkii ku dhacay dowladdii Maxamed Siyaad Bare. waxa uu qayb ka noqday goobaha sida muhiimka ah ugu burburay. wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo sidoo kale xiriirka kubadda kolayga ayaa hadda qorsheynaya in dib ay u howlgeliyaan garoonka kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya ee ku yaala garoonka tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho. garoonkan ayaa waxa uu markaasi ka mid yahay garoomada ugu waaweyn ee dalkeena Soomaaliya ee ku yaala, waxaana hadda la doonaya in dib loo howlgeliyo garoonkan si biliciisa loogu soo muuqdo, si ay fursado badan ugu helaan dhalinyarada ciyaarta kubadda kolayga Soomaaliya iyo kooxaha dalkeena oo qayb weyn ka ah horumarinta isboortiga. wasaaradda sidoo kale xiriirka kubadda kolayga ayaa in badan waxa ay ku taamayeen sidii ay u horumarin lahaayeen ciyaaraha kala duwan ee dalka, gaar ahaan kubadda kolayga oo muhiim weyn u ah ciyaaraha laga ciyaaro dalkeena Soomaaliya. waxaana garoonkan hadda fursad u heli doona kooxaha sanadkan ciyaari doona horyaalada soo socda iyo sidoo kale dhammaan xulka qaranka oo markaasi u noqon doona goob lagu tababaro laguna soo saaro xidiga matala kooxaha dalka iyo xulka qarankeena dalka Soomaaliya. maalinta 27 bishan Arbacada ku aadan ayaa isna dib loo furi doonaa horyaalka kubadda kolayga Soomaaliya, waxaana ambaqaadi doona kooxaha markaasi xifaatanka adag ka dhaxeeya, waxaana lagu furi doonaa kulanka koowaad wejigiisa koowaad. waxaa ciyaari doona Dekedaha iyo OFC. horey ayaa loo furay horyaalkan, waxaana lagu daafuray kooxaha Gifty Somali Fruit oo hore u soo wada ciyaaray 26 bisha 12 2022 ayay lugta koowaad ciyaareen, waxaana uu galay fasax horyaalka maadaama uu xilliga horyaalka ahaa mid sanad ciyaareedka 2022-2023. waxaana hadda dib loo bilaabi doonaa wejigiisa koowaad ayaa markaasi socon doona, iyagoona la ciyaari doono maalmaha Arbacada, Khamiista, Jimcaha, Isniinta, Talaadada ayaa dhammaan la ciyaari doona. kooxaha ugu waaweyn dalkeena Soomaaliya ayaa iskaga hor imaan doona. Hegan ayaa Khamiista ciyaari doonta, Somali Fruit ayay la ciyaari doontaa oo kulanka hore Gifty la ciyaareen kasoo adkaatay. kulanka xiga Balaasma iyo Gifty Star ayaa ciyaari doona oo markaasi noqon doonta ciyaar aad u xiiso badan. OFC iyo Horseed ayaa isna Isniinta ciyaari doona oo qayb ka ah Talaadada taariikhdu ku beegan tahay 3 bisha 10. waxaa iswajihi doona Dekedaha iyo Somali Fruit. sidaas ayaana loo ciyaari doonaa dhammaan tartamada kala duwan oo qayb ay markaasi ka yihiin sidii loo horumarin lahaa. jaaliyadda Soomaaliya ee dalka Finland ayaa xalfad soo dhaweyn oo dhiirigelin ah garab istaaga isugu muujisay wakiilka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga ee wadamada Scandinavia Cabdifataax Cabdi Xasan Arizona oo halkaasi tagay. jaaliyadda oo kaalin firfircooni ku leh horumarinta isboortiga dalka ayaa Cabdifataax u ballan qaaday inay ku garab istaagi doonaan horumarinta kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya, dhawaana u magacaawday xiriirka kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya.